oo aysan ahayn magaaladu hal dhinac kaliya marka hadda wixii ka dambeeya subxaanahu wa tacaala hadduu na waafajiyo waxaanu u wareegaynaa dhankii waxbarashada iskuulka la yidhaahdo imaamu shaafici waa iskuul runtii aad iyo aada u qiimo badan dad badan oo soomaaliyuhuna aysan ka warqabin culamaa uddiin markaa soomaaliyeed oo ka warramaya arrimahaas ayaanu mataqaanaa soo gudbi doonaa iskuulka iyo dhibaato arrimaha soomaalida looga baahan yahay asalaamu calaykum على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سآتي آية الليابة يا رعتها إيهبك والله أرجو سبع الأوكرة فعرفوا الأوكرة تهدمت إن وقتيان أنت حمر المجهل إيانا ومعاش dadkii macallimiinta ahaa iyo maamuliyaasha ilaahay ka abaal mariyo masraxiyada sida aan ka fahmay waxaan ka fahmayaa in tacliinta ay la socodsiinayaan waqtiga wuxuu jira ma aha tacliinta qofka inaad buuga intaad usoo qaadid aad u buuxisid oo sida intaas oo xafid laakiin tacliinta inay la socoto tarbiyada ay la socoto waqtiga kolkaal waxyaalaha loo baahan yahay waqtiga kolkaa la joogo waxyaalaha loo baahan yahay tacliinta inay la socotaa loo baahan yahay sababtoo ah waxa weeye dadkan macallimiinta ah waxay dhisayaan dad mustaqbalka siyaasadda iyo waddanka hogaamintiisa gacanta ku dhigayay dhisayaan waxaa hore loo yidhi binaau rijaali ashaddu min binaa'i lmasaanic rag oo la dhiso iyaa ka adeeg badan bulshado la sameeyo in rag la dhiso oo la tarbiyeeyo oo daganamo laga soo saaro dad wax hogaamin karo oo wax wadi karo mashaakilka haysta garanayo oo kolka marxalada ay marayaan garanayo raggaas in la soo saaro wuxuu ka adeeg badan yahay in guriga la dhiso ama masaalix dhiso ka adeeg badan taas waxaa ka soo bixi kara nin toosan kan kale waxaa kaloo jirta tarbiyadan aad arkaysaa oo mid waliba aragtida ay rabto inay mujtamaceeda ay ku dhaqdo ayay tarbiyadan ku salaysaa kan shuuci buu ku saleeyaa tarbiyadiisa iyo tacliimkiisa kan kale ee maaragtay isagana meesha yani dictaatoriga isagana kaasoo ku saleeya haddaan nahay muslim waa inaan ku salaynaa tarbiyadeen iyo tacliimkeena nabigeena calayhi salaatu wasalaam wixii oo noo keenay kitaabkeena qur-aanka inaan ku salayno wey waa ogsoontihiin qur-aankeena waxaa loo soo dejiyey dadki inuu tarbiyeeyo oo sidii wanaagsana ilaahay raallikii yahay ay isku habeeyaan iyaa qur-aankeena loo soo dejiyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam qur-aankii ilaahay soo dejiyey tarbiyadii ku dhaqnayd oo socoto wey waa tarbiyadii oo jasad loo gaali wey oo sida caasha ay tiri radi allahu canha nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam kayfa kaana khuluqa nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam kaanat waxay tiri kaana khuluquhu lqur'aan bimacnaa qur-aanku wuxuu sheegayo inaad nabigii ka heli jirti wey qur-aanka oo loo yeelay oo jismi leh oo socdo iyuu nabigeenu ah calayhi salaatu wasalaam waxauna soo saaray dad qur-aankaas socdo ah oo qur-aankaas wuxuu sheegaya ku habaysan iyuu soo saaray masaajidkiisa yaree gaashka ah waxaa ka soo baxay dad rabnimadooda aada usoofiyiin ee adduunkaasoo hidin wax lamida ilaa maanta aan laga helin iyo nabigeenu ka soo saaray waxaasina waa tarbiyada islaamka wey tarbiye kale idinka isbedeshaa bulshooyinka tarbiyooyinka ay bixinayaan kolba siyaasadda halkay u socota isku bedeshaa laakiin tarbiyada islaamka waxa weye waa kii ilaahi waa kii ilaahi waxaan leeyahay meesha waxay iga muuqato macallimiinta inay dadaaleen ay aada iyo aada u dadaaleen oo waxbaridii iyo inay waxbaridii ay ku habaysan tahay waxyaalaha maanta aan u baahannahay reer alla ka jejiyey waxaan leeyahay waalidiinta ha iga raalli ahay waalidiinta walaalayaal waxaan idiin sheegayaa ardaygaaga wiilkaaga
تدبر معلم بولية تدبر معلم يولية قلبي هو معلم يكسب بسكوله هو معلم درسك هو معلم جبت أو مرأي هو معلم سوق هو معلم وعيالان أو في الدنيا أو فيدي ويجي وحاس آخر هو معلم راجعي وحاول يسير هو معلم مدرستي هو معلم انت صاري بالبعض ميرك تربيل لك يمكن تربيل ميرك انت صاري لك يمكن قلت ولا ريال معلمك وحقوق يسيه هاي مركو جديد لا تساقله ساعدها ميشا يوغو إلى أنه كفحي انت وحي كسوهري ويسكا انت وحي كسوهري ميركم معها شبان ديري وقدر معلم خاصة يا الكفارية معلم هو الكفارية يسوي مجهول لكن مركو يريد أن تبعه وحي هو صلى هذا يصع عنك هذا الوالد وعد راتب الله أما خساركم مين هذه أنا تقول أو وقتي هذا عالكبير والمسيح لأدنى عالكبير أو مركو كسوطة عايز كسوطة ولا ريال ولا لديك المسيح والتهكي روانا وحلو طارية مين مركو يقول بجوغة كما فرصة عطان جدك iyo furska iyo waxyaalaha ka qaadanay iyo suuq waxyaalaha ka baranay inay la socotaan oo la doortoonin macallinka maanta uu ku soo dhigay oo dugsigii wax ku soo daray tacliintiisii hal bacad lagu leeyahay aad ka dhigan idinku oo waxay muruska yeelanaysaa inay idinku u soo jeedaan oo wiilkaasi ilaa intuu madrasada kaga baxay oo tacliinta oo dhammaanay jeesku macallin joogta isagaa wax badan ka waraayo isagaa suuquu ka ilaalin karo jidka isagaa ka ilaalin karo waxa jira deriska xumaanta saa ka ilaalin karo qoyskaas waa xel ku saariya haddii kaloo xil oo iska saaraya qoyska diinkaasi macallinkiina waa khasaaro waxa lagu aabuun maali ku soo jeedi intaasoo sannadood waxaa kaloo khasaaraha adigana waa kuu khasaaro wiilka faraha lagama qaado anugu ee intuu iskuulka ka dhamaynayo كنترول بالوهاية ميشو مرضي وإن التربية أكيدسا حديثنا ولا خطارة أنه في إيمانا ياي وحوية معلم كي يصير اتباطا ميشا كسوقاتي لكن يمكن سائدا ما حيثا يمكن ميشا أكد ياي دين سائدا أكربته كمسا صحي ما تقول الحديث كان أركي وحوية تصعب على خلقاتنا سنة كيبا لحولي سنة كهدين لحولي لا أنت وفتحها كجرو إنها يصع كامل ميشو كبير ثلاثة ميشو كسو تقول بدكم راعي إنها يصع كامل لكن في سنة كو يقول مصوري ويقصوا تربيين إنسان يرتاح أو فتحه فيها هذول مولوحا أو أهله وتوجد لفاعله وكل ما ينتهى لفاعله وقد يوحده أو لفاعله ووحي يجد الأمر كذبه إذا قد يملون الفرح وربرع الوالد حدينك ميلشني وادرتي وحا لبري ميلشني لمانتا نمنك ميلش أسر مانتا فرحت بإذنك إلهي ما كحن بذان وكشك لبان بيه من أقول خبأ ميشو لميش الجوه وجنير هذا سوق رهينا سدى سوق لا إله المدرينا إلا إله المدرينا وروح ديني فالأسوة جيدة حداكي والدينك معلمين سبعان حالة فيه عروض قرون سبعان حالة سبعان كيلو سبعان الله قادم من علم أحيانا نغني إلهي وحير سبحانه وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم إلا في تقربكم عندنا تلك إلا من آمن وعمل صالحا ويجادي مالكين إلهي من دونها حيث يكون كدوانيا لنا إليكم مؤمنين فيهم وعمل وناس ثمانية وأولاد بسوئي خيرك أدبركت وأولاد بسوئي خيرك أدبركت مركز إلهي من دون أولاد مركز كرية إلهي من دونك أداب أولادي الخير بركان حديث رب كل إله وحال إلهي يكون لنك أو مجرد أداب أذان سور شطيطان بريا سور رغم أنه إلهي عابر مريا وإله أنا تكحر وحبا آخرته ومجرد نبي إبراهيم بسيطة
ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ورمى عروض قربة أنفعي نسى قلب سليم أو بناسب أو بوانشاء نكي نجمت أو عروضك سوى ناس من التربية كاس من أنفعي تعروض ولا الوقت جيوة قوية وحنلاقي مع مرياكي معلمين إلى أعوال المريون والدين سنة وحنلاقي وحاكي معلمين جوفئة عروضة وحن لبرية إيرانية براعتها في عن تهد وليس لو تقعدنا إياه ولا يعلوه العليم إيانا ليبر برين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadkaa sharafta leh ee isugu yimid meesha kana kooma ardiya waalid macallimiin iyo maamul iyo marti wax u aba aad waxaan ugu faraxsanahay kulankaan qiimiga badan ee iimaanka hogaaminayo ee alla dartii la isugu yimid ayan dawla abaabulin dicaayadna loo samayn jaraa'idna aan lagu qorin idaacada aan looga yeerin ee qofla arkaba uu ku yimid isagoo iimaan hogaaminayo markaa jawigaan qiimiga badan ee ruuxaaniga ah ee aan kalada ku dhex jirno ayaa waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo kolka maanta waxay ii tahay min ascadi ayaami xayaati maalmihii adduunka aan ku noola maalmihii ugu qiimi badnaa bay aniga maanta ii tahay inaan arka dadkan isugu yimid alla darti iyo madrasadan loo asaasay ama markaskaan ama carruurtaa khayriga ah looma asaasay alla darti laysuguna keenay umad kala duwan oo dadka madrasadaa isugu yimid dadka is-eedaynaya inay ka yihiin baa laga yaabaa ka mid yihiin laakiin iyagii way isu yimaadeen waana dadkaa walaalaha ah alla dartiina ku walaaloobay jawigaa iimaaniga ana ku nool waxayna ila tahay ama iska muuqata ummadda dadkii anfici laha ee dhibaatadii halaagay ku sugan tahay ka saari laha idinka inaad tihiin baa ii muuqata waxaanan ka garanaya tarbiyadiina xalaasha ee aad ku anqaateen indhihii afka ku kala qaadeen ayaan ka garanaya intaa hadday gogoldi ii noqoto waxaan u gudbayaa muxaadarada mawduuceedii aha warbixin iyo waana idinkaan warbixinta idinka bilaabayo idinku way isuma haysaan aniga 12 sanaan idinka maqnahay haddana 9 xalay baa ii anfilaya intaan idinla joogo markaa dadka aan ugu imid xamar ma aha dadkii aan uga tegay 9 maalmood aan xamar joogay oo aan ku dadaalayay inaan indhaindhayo beledka oo aan intii badnayd maray ma ana qof aan istiraado ma tijaabno dumara hal qof aan ka hay laga yaabo dan inay u geyso ay waxay dusha iska saartaba weyday laakiin markaan ka tegay 12 sano ka hor xamar ma arki jirin wax ijaaban sida maskaxdiiyo maanka uguma jirin idan haddaan imid waxaan arkay dadkii oo qof la arkaaba kabakii ijaaban madamadaw in la qaataa shardi maa rogada in la qariyaa shardi rogada in la qariyo ayaa shardiga waa nicma min allahi caza wajal muxaadarada tan waa tii sanaad baan filaya dadka i dhagaysanaya waa dad qayla hordaan awalba soomaali waayeel tukada waa lahaan jirta weligeed waayeelka waa tukan jiray dadkaanaan naga maqnaa oon gacan ku jirin kolka iyadana oo waxaan hore u jirin laakiin haddeer jira waxaan is leeyahay jugtiina gaartiiyo karbaashkii nagu dhacay ta'diib min allahi caza wajal ayuu ahaa oo saan ogaa haddii la sii yahay iyadoo la kibirsan yahaan oga xilka iyadoo la madaya iyadoo rabbi junuubtiisa dibadda laysu taagoo laleeyahay gaajada iyo cudurka iyo jahliga faal in lagu qaado weliya allah oo caloosha laysila taago markaasa iyagii faal iyo laab lagu qaado kibir bay taasi ahay qofka muuminka ah markuu qorsho degsanayo sadkii rabbi inuu ku darawo walaa taquulanna lishayin inii faacilun dalika gadan ilaa an yashaa allah haddii mashiicadii alla lagu dari lahaa cudurkaan dabargoynaynaa in shaa allah
gaajadaan dabar goynaynaa insha allah jahligaan dabar goynaynaa insha allah haddii qorshihii mashiicadii alla lagu dari lahaa oo rabbi sadkiisii banaankaa laga mari lahaa wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allah mashiico makhluuqiini mara waxay ku taalna mari waxaan qabaa meel baa la gaari laha iyadoo marka heerkaan la maraayo ayaa waddan kaga tegay iyadoo fadiilada iyo sharafta lala xarbiyo oo uu yahay dambiile qofka wanaagga ama muujiye ama ku hadla oo khalaacada iyo xeryadaalanimada isdhexboodka qaylada junuunka iyadoo itijaahu sidaayo oo dhankaa la aadsan yahay fadiiladana lala dagaalamo haddana dunidii waxaa saabatay fadiiladii xijaabkii salaadii dugsiyihii qur-aankii ikhbaarka muxaadaraadka iyo cashirada culamada ay dhiibayaan sida loogu bog iyo beekeenayo ee loo jeceliyo loo raaricinayo nabiyaal alla diray baa waxay leeyihiin oo rusul ah rabbi inii dacawtu qawmii laylan wanahaara falam yazidhum ducaai ilaa firaara maalinta qiyaama waxaa iman doona nabi rabbi reere u diray oo caddaysimo oo keligii ah walaysa macahu ah waa la soo diiday nabina hal qof buu la iman doonaa midna laba qof buu la iman doonaa midna xoogaa cantoola ayuu la iman doonaa laakiin inagoo nabiyaalahay dadka intaa leedaha muslimiinta doonaya diintooda inay bartaan ku barxaaya culamadooda waa nicma min allahi caza wajal culamadana xujay ku tahay ummadiinii markay iqbaalkaan idiin timaado inaad ummadiini diinta ka yarjistaan oo ka haqabtirtaan macluumaadka oo wixii aada idin baray ummadiina aada bartaan culamadana xujay u tahay ummadana sharafday u tahay waxaan is leeyahay in allaha laa yubayinu maa biqawmin xataa yubayinu maa bianfusihim walageena xumaaya qaarka dagaa wixii la doonabaha inuu xajiyeeyo waxyeela ummadda laakiin ijaaraheeda iyo mucamkeeda iyo muuqaalkeeda inaynu badaalay madalkiiyo muuqaalkii xumaa ee ummadii ijaahday maade si xaaladahayso ay rabbigeeda u jaraysatay ay gudanaysa cibaado ruuxi ah oo iyada uga baqaysa ama ay ku soo dhaweynaysa aada adag markaa warbixintii idinka bilaabo aad iyo aad baad u wanaagsan tihiin nicmadii rabbigii idiin nicmeeyeyna way idinka muuqataa wanaagga ama fiicnaantana intaas oo lagu sii wado waxyar waxaan daliilayaa xagga tansiiqa haddaa waxay moodaa duruuf qalabsani inay jirto sidii loo xiriiri lahaa ama la ysugu dadaal darsan laha hadday ardooyinka tahay ardooyin badan iyo meelo badan oo khayri ah ka jira beledka ama hadday tahay idaarada maamulka ama hadday tahay waalidka ama hadday tahay aragtida iyo manhajka intaasoo la isku daro baan sabanaya oo go-anaya laakiin dadaal aada u qiimo badan baa ii muuqanaya isbedel weyn oo islaami ah ayaa ka dhacay dalka oo muuqanaya oo ruuxi ah oo dadku ay rabbi iyo rasuul u hoggaansan yihiin diintooda baranayaanay ku dhaqmaayaan walaalnimadii alla darteedna dib loo soo nooleeyey oo la dhaqan geliyo la abuuray markaa warbixinta idinka bixiyo ama idinka bilaabo waxaa idin garan kara qofkii hore idinka maqnaa hadeerna idiin korka aada iyo aad baad u wanaagsan tihiin qolaaduna waa taasoo lagu sii waday لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إخوتي في الإسلام أينما نكون في الصومال أو خارج الصومال المطلوب منا هو عبادة الله والاستعداد ليوم اللقاء ولا يمكن أن يلقى الإنسان جزاء طيبا يوم القيامة إلا إذا تمسك بمنهجه
واعلموا إخوتي في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا ومما أوصيكم إخوتي في الصومال أينما كنتم ألا تنسوا دينكم وتربية أطفالكم وأبنائكم على دين الله وعلى الخلق الكريم والسلوك المستقيم. ومما ينبغي أن يعلم أن الحرب في الصومال بدأت من التسعينيات والآن مستمرة والحياة فيها محطمة. ومع ذلك إن مدرسة الإمام الشافعي قامت بالتربية الإسلامية حقا لأبناء الصومال حتى كانت الآن مضرب مثل. ولذلك إذا جاء عليكم إلى جانب تربية أبنائكم على دين الله والأخلاق الكريمة والسلوك المستقيمة إلا من عصم الله. وهذه المدرسة خاصة هي نموذجية بالنسبة للمدارس في الصومال إن كانت مدارس، ولكنها واجب على كل صومالي يملك دينارا أو دولارا واحدا زائدا عن حاجته أن يساعد، لأنه بمساعدته يكفر عن خطايا المجرمة التي حطمت المجتمع. فأسأل الله أن يوفقكم على أن تستخدموا أموالكم أو أن تستودعوا أموالكم عندما لا تضيع في الودائع، عندما لا تضيع الودائع وعنده. فبارك الله لكم ورزقكم رزقا طيبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. diinteena islaamka waa diin alla uu noo dooray. alla subxaanahu wa tacaala isagu uu diinaha inooga xulay weeyaan. allana wax ka aqoon badan oo ka naxariis badan ma u jiro. marka diinta alla subxaanahu wa tacaala inoo dooray oo inooga raalli noqday oo inoo kaamil yeelay oo alla subxaanahu wa tacaala uu inoogu talagalay in danaheenna oo dhan iyo maslaxadeenna oo dhan iyadoo inoo daboolayso weeyaan. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina. sadaqa allahu alcadiim. aayaddaana macnaheedu waxaa weeyaan alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay maanta ayaan diintiinni idiin kaamil yeelay oo diintiinni ay xoogaysatay oo gaaladii ay idinka hadheen awal hore ku hamiyayey inay diintan baabi'iyaan. marka wax alla uu taam yeelayna wax ka tarayaa oo dhibaato u geysan karaayo ma jiro, isagoonbaa isdaalinaya. marka diinta waxaa weeye diin alla subxaanahu wa tacaala u talagalay ilaa qiyaamaha ina iyada un midda keliyahay alle lagu caabudo, alle lagu dhowaado ay noqoto weeyaan. maantaan diintiinna idin kaamil yeelay buu yidhi oo nicmadiina aan idin taam yeelay oo islaamka aan idinka raalli ahaaday inuu diintiinna noqdo. diin alla inooga raalli noqday haddaynu inagu ku raalli noqon weyno marka waxaa weeye dad alle gooye baynu noqonaynaa, dad alle ku gaf xugmiyey oo alle waad gafsan tahay diintantadu mid lagu raalli noqon karaayo ma aha dhahay baynu ka dhigannahay. marka waxaa weeyaan waxay nala gudbaan muslimiin haddaynu nahay diinta inaynu qaadanno aynu alle ugu shukrino ugu mahadnaqno dooridda alla oo inoo dooray. diinta waxaa weeyaan diinta islaamku waa diintii ambiyadihii hore oo dhan dhammaantood kulligood ayay ahayd. nin walibana dadkiisa sidaas ugula dardaarmi jiray. yacquub isagoo nebi israa'iil oo nimanka yahuudda israa'iil isku sheegaayo nebiga ku abtirsadaan ah, wiilashiisi kolkuu dardaarmayey oo dhimanaya buu la dardaarmay wuxuu yidhi yaa baniya ina allaha astafaa lakum uddiin falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. war wiilashaydiiyow alla subxaanahu wa tacaala diinta ayuu idiin doorto o idiin xuleeye, islaamnimo mooy si kale ha ku dhimanina, islaamnimada ku dhinta ayuu leeyahay. marka midda diinta keliya ee alla subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay diinta waaraysa ee diinihii hore oo dhan wada nasakhday
diin ka dambaysa oo nasakhaysaana ayna jirin diinta islaamka weeyaan meel kale kastoo aynu joogno dalka dhexdiisa haddaynu joogno iyo haddaynu dibadda joognaba diintaa inaynu qabsanno o aynu ku mintidno oo ilmaheena aynu barro oo aynu ku dhaqno o aynu ku maamulno ayaa laynaga rabaa dowladnimadeenna iyada aan ku salayno aan iyada ku maamulanno ayaa laynaga rabaa calaaqaadka aan samaynayno ee ama dowladda dadweynaheeda ay la samaynayso oo ama dowladaha kale ay la samaysanayso xiriirka ay la samaysanayso kolkii dagaal uu dhacay iyo kolkii nabad layahayba diinta islaamka weeyaan waa sharaf bay inoo tahay diinta qasashadeedu allahu subxaanahu watacaala wuxuu yidhi qur-aanka isagoo ka hadlaaya oo nebiga calayhi salaatu wasalaam la hadlaaya wainahu ladikrun laka waliqowmika wasawfa tas'aluun macnuhuna waxaa weeyaan qur-aanku wuxuu idin yahay sharaf buu kuu yahay baa layidhi adiga ummadaadaba sharaf buu idin yahay waana laydin su-aali doonaa marka wax sharafteeni buu inoo yahay inaynu ku faanno weeyaan sharaf ka weyne aynaynu jirin waa inaynu ogaano waa inayna waxyaalo kale oo ama diino hore ah ama mabaadi' kale iyo falsafaad iyo waxyaalahaas ah waa inaynaan unla taagin diinteennu inay wax walbaba iyada ka sharaf badan tahay oo sharafteenna iyo khayrkeenna iyo wanaaggeenna iyada unuu ku jiro inaynu ogaano weeyaan haddaynu diintaa dayacno waa dayacmaynaa waa lumaynaa dad sharaftoodii lumiyey sharaftoodii garan waayey ayaynu noqonaynaa marka dulli baa alla subxaanahu watacaala allayna badayaa allana wuxuu yidhi walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay alle iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta ayaa cizi leh marka mu'miniinta la sheegayaana waa mu'miniinta raacda raadkii nebigooda calayhi salaatu wasalaam iyo manhajkiisii raacda iyo saxaabadiisay ahaan jireen ahaada kuwaas weeyaan iska sheegasho diinta la iska sheegto oo lagu faano una la yidhaaho annaga soomaali haddaan nahay boqolkiiba boqol baan muslimiin nahay ee camalkeena aanu diinta ku salaysnayn taasu marka waxaa weeyaan waxay noqonaysaa been bay noqonaysaa beenna alle subxaanahu watacaala muxuu ahaa looma qarin karayo alla subxaanahu watacaala isaga qalbigeenna iyo sirteenna iyo wax walbaba isaga inaga og alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu alkhabiir ayuu leeyahay kii idin abuuray miyaanu ogeyn wax walbaba oona ogeyn oo ka cilmiga badan ee wax walbaba hoos u og isagaa ahe miyaanu xaalkeenna ogeyn waa ogyahay alla subxaanahu watacaala marka alla subxaanahu watacaala ballanteenna u qaadnay waa aynu sheeganay inaynu muslimiin oo diinta islaamka aynu qaadanay waa inaynu ka dhabayno dadka marka dagaalka lainagu hayo dagaalada gaalada inagu hayaan yaa waxaa ka mid ah in layna gaaleeyo oo diinta laynaga xado ayaa had iyo goor ay ku dadaalayaan kuwa halkan kada yimaada unisom iyo waxyaala saa isku soo sheegaana barnaamijkaasay jeebka ku wataan kuwa qaxootiya dad baan qaadayna dad baan dejinayna dhahaya ee inay dadka soomaaliyeed u naxariisanayaan iska dhigayaana qaladkaas iyaguna wataan oo inay dadka soomaalida ah iyna diintooda ay ka xasdaayaan oo diinta wanaagsane alla siiyey ayay muxuu ahaa cizigooda iyo sharaftooda ah inay ka lumiyaan ayay rabaan marka waa inayn diinteenna aynu ku mintidnaa waa inay ogaadaan dadka dibadaha jira ee dibadaha ku nool inay hadday diintooda qabsadaan jihaad inay ku jiraanoo dad mujaahidiin fii sabiilillaahi ay noqonayaan oo muxuu ahaaye iska celinta iska cabinta iska caabinayaan barnaamijka gaalada ay muxuuha ay wadato ay ku diidayaan ee gabdhuhu xijaabkooda ay qaadanayaan oo ilmuhu qur-aankooda ay xifdinayaan oo guryaha lagu baraayo oo iskuulo gaara loo samaynayo oo masaajidda ilmuhu ay tegayaan oo duruusta laga bixinayo inay ogaadaan weeyaan inay jihaad ku jiraan waa inay ogaadaan oo afdal jihaad uu yahay leanna allah nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi jaahidu lmushrikiin bianfusikum wa amwaalikum wa alsinatikum gaalada kula dagaalama naftiinna iyo maalkiinna iyo carabkiinaba kula dagaalama marka carabka lagula dagaalamayaa waxaa weeyaan in dacwadii dadka muxuu ahay islaamnimada loogu yeedhayay in la xoojiyo weeyaan muslimiinta dhexdooda hadduu yahay iyo haddii uu yahay gaalada muxuu ah oo islaamnimo inay soo galaan loogu yeedhay oo muslimiintu inay islaamnimadooda xoojistaan oo adkaystaan oo ku intidaan loogu yeedho oo la baraba intuba waa tahay marka jihaad ayaad ku jirtaan waxaan leeyahay dadka muslimiinta ee dibadaha jirow diintiinna ku dadaala saad u baran lahaydeen ilmihii noo bari lahaydeen kii wax ka yaqaano intaa taqaana aad ugu gudbin lahayd walaalahaaga ku dadaal diintaada wax walbaba inay kaaga sharaf badnaato ayaa la rabaa allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna yuqaatiluuna fii sabiili illah fayaqtuluuna wayaqtaluun wacdan calayhi xaqan fi altawraati waalinjiil waalqur'aan waman awfaa bicahdihi min allah فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون إلى آخر الآيات
marka macnuhuna waxaa weye alla subxaana watacaala wuxuu ka iibsaday dadka muslimiinta ah naftooda iyo maalkoodii buu ka iibsaday wuxuu kaga iibsaday jannu kaga iibsaday marka waxaana la ogyahay qofku wuxuu iibsanaya ee shay kale u dhaafsanayo waxaa weeye waa wax uu u haysto inuu shaygaasu uga nafci badan yahay oo kan uu bixinayo ee uga nafci badan yahay oo kaa uu soo qaadanayo soo gashanayaayo uu uga fiican yahay inuu haysto weeyaan marka nafteen alla subxaana watacaala nafteenna buu naga iibsaday nafteenna waxa nooga qaalisana adduunka ihina ma uu jiro marka wuxuu alla inagaga iibinayaayo waa wax nafteenna inooga fiican inuu yahay wax nafteenna inooga fiican buu alla inoo hayaa oo janno ah janno oo wax aan ay ku jirto wax nicmo daa'im ah dadka had iyo goor qof waliba wuxuu jecel yahay raaxo kaamil ah ayuu jecel yahay oo xag qalbi iyo xag jasad intaba meelaan laga dhimanaynin oo laga gaboobaynin oo la caroonaynin oo la jiranaynin oo la naxaynin oo la gaajoonaynin oo la dhaxmoonaynin oo la qoraxoonaynin oo wax ku xumeeyo oo dhan aadan arkaynin wax ku isu qalbi xun oo cadaawad iyo waxsaas isu qabiya aan la arkaynin waxaa weye jannada weeyaan jannadii oo marka daartu alla subxaana watacaala mu'miniinta ugu talagalay inuu ku martiqaado oo diyaafaddii alla uu sameeyey ah taasoo alla subxaana watacaala muxuu ahaaye oo alla subxaana watacaala inagaga iibsaday aayad kale alle wuxuu ku leeyahay waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qofkii ka jeedsada diinteeda ka jeedsada wuxuu leeyahay nolol ciriiri ah ayuu leeyahay maalinta qiyaamahana isagoo indhala' baa la keenaya mowqifka la keenaya oon waxba kala arkin marka taas waxaa weeyaan aakhire iyo adduunkaba diinta islaamka ah waa midii sharafta lagu gaadhaya nolosha wanaagsan lagu gaadhayay wuxuu leeyahay alla subxaana watacaala dadka mu'miniinta ah ee camalka wanaagsan sameeyey yo alla subxaana watacaala wuxuu leey falanuxyanahu xayaatan طayiba walanajziyanahum ajran baxsana maa kaanuu yacmaluun waxaan noolaynaynaa nolol wanaagsan baan adduunka ku noolaynaynaa aakhirana waxaan uga abaalgudaynaa camalkii wanaagsanaa ay samayn jireen marka aakhiriya adduunkaba wanaaggoodii iyo sharaftoodii diintii lagu gaadhayey dowladnimo lagu helaayey nabadgelyo iyo badbaado lagu helaayey barwaaqo iyo nicmo lagu helaayey walaalnimo iyo isjacayl iyo iskuduubni lagu helaayey diinteenna islaamka weeyaan walaalayaal marka diinteenna waa inaynu ku dadaalaa aynu ku mintidnaa nin walaba meesha aad joogto waa inaad ogaato inaad tahay askari ilaalinaya xad xuduudda muslimiinta ka mid ah meeshaada waa inaan looga soo dhicin qofoona waa inaan qofoona meeshaada muslimiinta aan looga imaanin ama qof walaba meeshiisa haddii uu ku dadaalo oo meeshiisaas uu waardeeyo kolkaasu marka islaamkii wuu xoogaysanayaa haddii kale oo qof wala yidhaha ani maxaa iga gala nafteyda la raaciyey uu iska yidhaaho sida dad badana ay yidhaahaan marka kolkaas waxaa weeyaan inuu dad kala daadsan oo cadowgoodii u nugul ayay noqonayaan nebigu sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu u mahmaahay dadka muslimiinta say isku yihiin wuxuu ugu mahmaahay laba mahmaahood buu bixiyey labada mahmaahood mida waxay tahay wuxuu yidhi dadka muslimiinta waxaad arkaysaa say isu jecel yihiin ay isugu duuban yihiin ay isugu naxariisanayaan isu kaashanayaan waxay lamid yihiin hal qof oo keliya ayay lamid yihiin oo qofkii waxaa la ogyahay jidhkiisu dhowr xubnood ayuu ka kooban yahay waana hal qof keliya xubnahaasna waa isku xidhxidhan yihiin xubin gaarkeeda isu taagaysaa ma jirto markaasu wuxuu yidhi tara almu'miniina fii tawaadihim wa tacaatufihim wa tacaawunihim kamahali اljasad اlwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadacaa lahu saa'iru اljasadi biالsahri wاlxuma waxaad ku arkaysaa dadka muslimiinta say isu jecel yihiin isu kaashanayaan isu caawinayaan hal qof oo keliya oo hadduu xubini jirato xubnaha kale o dhan kulligood ay u wada ooyayaan oo kulligood ay la wada xanuunsanayaan la wada qandhanayaan ciddii hadday qofka qodxintay ka muddo ay xanuunayso habeenkaasoo dhan ma seexanayo ciddii tara almu'miniina fii tawaadihim wa tacaatufihim wa tacaawunihim kamahali اljasadi اlwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadacaa lahu saa'iru اljasadi biالsahri wاlxuma waxaad ku arkaysaa dadka muslimiinta say isu jecel yihiin isu kaashanayaan isu caawinayaan hal qof oo keliya oo hadduu xubini jirato xubnaha kale o dhan kulligood ay u wada ooyayaan oo kulligood ay la wada xanuunsanayaan la wada qandhanayaan ciddii hadday qofka qodxintigaar xanuunsanayso jidhka intiisa kale ayaa hurdo la-aan iyo qandho iyo soo jeed ay ku dhacayaan muslimiinta marka sida inay isugu xidhnaadaan isugu duubnaadaan meeshii dhibaato ka dhacdaba qof kasta oo muslimhiba uu ka xanuunsado oo uu u qaato wax isaga ku dhacday oo kale
tahay marka reer beled hebel baa waxaas ku dhacay aniga maxay gali beledkayga ifayow yahay gurigayga ifayow yahay naftayda waa ifayowdahay carruurtayda waa ifayowdahay inuu yidhaaha ma aha waa inuu qof walba qofka kale muslimkaa naftiisii uu ka soo qaado dhowr aayadood ba alla subxaanahu watacaala dadka muslimiinta ah uu leeyahay naftiina waxaa ka mid ah qowluhu tacaala falaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima naftiina ha dilina marka waxaa lagu fasiray laa taqtulu ikhwaanakum marka qof kale muslima dila qof naftiisii dilay ayuu alla subxaanahu watacaala ka soo qaaday wuxuu leeyahay aayad kale alla wuxuu ku leeyahay faidaa dakhaltum buyuutan fasallimuu calaa anfusikum kolkaad guryo gashaan naftiina salaamo maxaa laga wadaa qofku isagoo isa salaami maayo oo assalaamu calaya ma dhahayee assalaamu calaykum buu dhahaya dadkaasuu salaamaya salaamta dadka uu salaamayo ayaa waxaa laga dhigay wuxuu isagu isa salaamayo ayaa laga dhigay leanna dadkaasu dad ajaanib ah ka gaar ahoo maahe ka baxsan waa isaga naftiisii alla subxaana watacaala sidaasuu marka inoo tusayaa dadka muslimiinta isku xidhnaanshahooda iyo isku duubnaanshahooda inayna ahayn walaalo keliya ayna ahayne ay hal keliya isku yihiin qof keliya ay isku yihiin saasaa dadka marka muslimiinta ah yaa laga rabaa beled kasta uu yahay inkastoo kala fog yihiin inkastoo midabadooda kala duwan yihiin afkay ku hadlaan kala duwan yihiin dowladahoodii iyo dhalashadoodii iyo ay kala duwan yihiin haddana diinta ayaa midaysay way walaalaysay keliya maaha way midaysay hal qof oo keliya ayay ka soo saartay halkii qof marka xubnihiisii ayuu qof waliba xubin ka mid ah uu yahay marka sidaas inuu qof waliba u dareemo ayaa laga rabaa ayaa laga rabaan oo ugu camal falaan markaasay khayrkoodii iyo wanaaggoodii iyo sharaftoodii alla ugu talagalay ay helayaan cizigii alla subxaana watacaala uu leeyahay walilahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin marka walakina almunaafiqiina laa yafqahuuna baaba sii raacsan oo munaafiqiin bay marka haddii kale ay noqonayaan oo aan wax garanaynin oo kuwa alla subxana watacala uu leeyahay munaafiqiintu ma fahmayaan arrintaas ah waa inay arrintaas fahmaan munaafiqnimada ay iska tuuraan ay marka diintooda jeclaadaan ay qabsadaan ay ku dadaalaan sidaasaa laga rabaa halkan kada hadda meesha soomaaliya waxaa weeyaan dal islaami iyo dad muslimiin ah weeyaan dagaal badanna gaaladu way ku haysaa allama haddiisna inkastoo dadku faqiir uu yahay jahliguu ku badan yahay haddana diintooda way jecel yihiin way ku mintidaan gaalada waxyaalaha ay wataan way ka soo horjeedsadaan waa suuroobi weyday dalkan kada mar horaa loogu talagalay in dal kiristaan laga dhigo muxuu ahaaye haddana waa suuroobi weyday hadda kadibna ma suuroobayso bixamdillahi subxaana watacaala alla diintan alla isaga subxaana watacala isaga xafdinaya inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun ayuu yidhi annagaa qur-aanka soo dejinnay annagaana ilaalinayna ilaalinta uu ilaalinayana waxaa dadka muslimiinta ayuu ku ilaalinayaa dadka muslimiinta ah yaa allah subxaana watacaala uu ku daafacayaa marka qof walaba waa inaad ahaato qofkii diinta alla daafacayey ee muxuu xifdiga ka qayb qaadanayay inaad ahaato inaad ku dadaashaa ayaa laga rabaa dugsiga alimaam ee soomaaliduna ee madhabkiisa haysata alimaam shaafici la dhihi jiray abu cabdillaahi maxamed ibni idriis alqurashiyi almuطalabiy radia allahu tacaala canhu waa dugsi wanaagsan khayr badan wada rag mu'miniin ahoo muslimiin diintooda u ah oo dalkooda iyo dadkoodaba jecel oo dhibaatada muslimiinta haysata markay arkeen gaar ahaan xagga tacliimta iyo jahliga haysta markay arkeen u guntaday inay ilmaha muslimiinta wax baraan weeyaan barnaamij fiican ayayna ku socdaan waxaana filayaa in faqradan ka horreeyey aad ku aragteen musawiro mafilaya dugsigaas iyo nashaataadkiisa iyo ilmaha wax ku barta iyo gabdhaha siday yihiin iyo wiilasha iyo gabdhaha sida loo kala soco iyo siday qur-aanka u xifdiyaan u aqriyayaan iyo siday diinta loo baro iyo macalimiinta waxbaray inaad aragteen baan u malaynaya taasina marka waxaa weeyaan waa dugsi muta in la taageero oo loo fidiyo taageero maadi iyo macnawiba ah oo lagu daydo oo isaga oo kale qaryo kastaba iyo xaafo kasta iyo tuulo kastaba inuu ka dhisnaado ayaan aada iyo aada u tamaniyi lahaa marka waa in dugsigaas wixii lagu taageeri karo maal iyo ra'yi iyo macalimiin iyo intaba qalab waxay u baahan yihiin in lagu taageero muxuu ahaaye yaan kula talinaya dadka muslimiinta meel kastoo joogaanba sala allahu calaa nabiyina maxamed ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فيقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. hadalkan kooban oo nasiixo ah naftayda iyo dadka walaalaha ah oo muslimiinta ah, khaasatan الصوماليين الذين يعرفون هذه الرطانة. nasiixadaas waxaan maaragtay aan u soo jeedinayaa nasiixada tan ah hadalkaa kooban naftayda iyo dadka soomaalida ah oo maaragtay maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u baryayno in fitanta dhacday iyo rafaadka waddanka ka dhacay in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa dhammaan naga kor qaado. nasiixadaasi waxa weeye saad la socotaan waddanka waxa ka dhacay burbur weyn, waxa ka dhacay fitan, waxa ka dhacay ma aragtay wax ilaahay subxaanahu wa tacaala laga magan galo. saad la socotaan walaalayaal, soomaaliya dadkii soomaali la odhan jiray oo waddankan deganaa geeska afrika, saad la socotaan waxay u kala kaceen maaragtay firaq, dahabu shadara madari. fitan badan baa dhacday. dadka hadda maanta joogoo deganina waxa weeye waa hamba ka hadhay dadkii dhintay, dad naafa ah, aytaam, maxaan ku idhaahdayey dad wada jiran. dadku haddaad fiiriso ood dhex marto waxaad moodaa inay madaxa ka jiran yihiin. cudurrada haya waa cudurro wada khatiir ah. ruuxa fayooweed aragto isaga laftiisa waxaa weeye wuxuu u baahan yahay meel degan ama meel ma aragtay una ka argagixin, waxaan argagixiyo ma aragtay inuu ka fogaado. fitan badan baa walaalayaal jirta waa waddankii gudihiisa. marka dadkii dibadda u baxay oo soomaalida ahaa meel ay joogaanba, dadkaas waxaa loo baahan yahay shareecadii islaamka ahayd iyo diintii islaamka ay u nisbaysanayeen iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inay ku daydaan, inay ma aragtay ay ku dadaalaan. weliba khaasatan dadka yurub jira ama amerika jira ama meelaha kale jira, austraaliya iyo meelo kala galay oo markaa ka fogaaday addiyaar almuslima, dadkii muslimiinta ka dhex baxo dibaddaa u baxay, waxa xil weyn baa saaran. nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ummaddan markii loo soo diray waynu ogeyn xaalada ay ku sugnayd jasiira carabiya ama umal carabiya wixii loo odhanayey. yacni waxa weeye firaq bay ahaayeen, dad qabali bay ahaayeen, dad ma aragtay iscunaya bay ahaayeen, juhaal bay ahaayeen, mushrikiin bay ahaayeen, ummad baaba'day oo mustacmaray ahayd. nebiga markii loo soo diray calayhi salaatu wasalaam, ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddaa nebiga sababtii iyo ma aragtay risaaladii mubaaraka ahaydee nebiga loo soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay waa ku sharfay, ilaahay waa ku karaameeyey, ilaahay subxaanahu wa tacaala kor buu ugu qaaday ilaa ay noqdeen iyagu dadka cisiga leh ee sharafta leh ee ma aragtay maxaanku idhaahday ummadihii ka soo horjeeday ama waddanka carab la odhanayey ma aragtay ama umal carabiya isticmaarsanayey in iyagu ma aragtay islaam ay ugu yeedhaan oy iyagu xukumaan ay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xukumaan. marka nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ummadahaas oo faris iyo ruum ah oo inaga ma aragtay khilaafay hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo alyahuud wanasaara ah, nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddatana waa uga digey, raggooda iyo haweenkooda, caamadooda iyo culammadooda iyo dhammaan waa uga digey weeye ilaa qiyaami saaca calayhi salaatu wasalaam, isagoo tilmaamaya ummaddatana qaar ka midihii dadkaa inay ku dayanayaan oo ay arrintaasina dhici oo lagu dayanay faris iyo nimanka la room oo lagu dayanay nimanka la yidhaahdo alyahuud wanasaara, ayuu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiisu abi saciid alkhudri asaxiix, iyo wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuhu. xadiisu abi hurayrana nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam
laa taquumu الsaaca xataa ta'khuda ummatii ma'khada alquruun shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin qiila yaa rasuula allah nabiga waa la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam ka faarisin waruum qaala wuxuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waman innaasu ilaa ulaa'ik oo dad kale maa jira waxa haddaan ka warramayo waa iyagee marka nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu warramay faris iyo roomaanka in la raaci dad raacayaane ku dayanayaan waxaa kaloo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam sheegay yuhuud iyo nasaarana inay dad ku dayanayaan labadaba waa ka warramay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam oo ma aragtay xagga dharka lagaga daydo xagga suluugga lagaga daydo akhlaaqda lagaga daydo iyaga la moodo ma aragtay maxaanku idhahday dadkii himiladii iyo horumarkii iyo wanaaggii ma aragtay lagaga daynayo dadka tusaalaha u ahaa sidaa la moodo iyadoo dadkii muslimiina oo arrintaasi ay tahay nooc min alinxiraaf inxiraafkaasina suuroobi karto inuu ruuxaba diinta ka saaro oo suuroobi karto inuu yahay nooc min alfisqi oo suuroobi karto nooc min almacaasi inuu yahay way suuroobi karto inay khata' tahay intaba ay ku suuroobi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam saasuu uga digay ummadda tan ah marka xadiiska kalena wuxuu inoo sheegayaa ummaddu inayn arrintaa u dhammaanaynin oo maxaanku idhahday jirayso dad diintii haysta mustamsikiina sunnadii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam uu yidhi man kaana calaa mitli maa ana calayhi اlyawma waasxaabii firqa naajiya nebigu kolkuu ka sheekaynaya calayhi الsalaatu wasalaam buu wuxuu yidhi laa tazaalu طaa'ifatu min ummatii ظaahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa ya'tiya amrullah xadiiskaa iyo labada xadiisii hore iyo wixii baabka ku soo arooray haddaynu kulminno waxaynu meeshaa ka fahmaynaa dad ka mid ah ummadda tan ah inay ma aragtay ku dayanayaan yuhuud iyo nasaara iyo faris iyo roomaan oo markaa yuhuud iyo nasaarana waa ahlu kitaab dadkii kitaabka lahaa weeye waa almaqduubu calayhim iyo maxaanku dhaha wadaalliin weeye kuwa horena waxa weeye waa acaajimta oo waa dadka juhaasha ee ma aragtay caabudaya maxaanku dhahday dabka iyo wixii la halmaala oo ma aragtay ka soo hadhay labadaa kitaabka aan lahayn laakiin iyaguna maxaanku dhahday mushrikiinta ah weeye marka nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista kan haddaan kulminno wuxuu noo caddaynayaa ummadda tan ah firqa naajiye ah oo manhajkii nebiga haysata calayhi salaatu wasalaam oo yuhuud iyo nasaara iyo ma aragtay caajimta midna toona aan ku daynayn inay jiraan saasuu nebiga halkan inoogu caddaynaya calayhi salaatu wasalaam axaadiista kalena waxay noo caddaynaysaa ummadda dad ka mid inay dadkaa ku dayan marka labaduba inay jirayaan baa meesha aan ma aragtay axaadiista ka fahmaynaa markaan kulminno ummadda inay wada raacaynin yuhuud iyo nasaara ummadda maxaanku dhaha dhammaanteedna inayna ma aragtay yuhuud iyo nasaara ay ma aragtay ay ka wada fogaanaynin oo dad iyagii ay ku dayanayaan walaalaha marka hadda yurub jira ama amerika jira waxa ma aragtay la gudboon waddan waxay joogaan khatara sida wararku ay nagu soo gaadhayaan dad badan inay inxiraafeen sida nagu soo gaadhayo in bayaantii iyo la xalaashaday maxaanku dhahdaayey khiyaanadii iyo ma aragtay in wax laysdaba mariyo oo ma aragtay taqwadii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay yaraatay wa khaasatan dadka caamada ah dee waxyaalaha waaba ma aragtay soomaalidu iska qabtay laakiin xataa wadaadadii in la noogu sheegayo waa wax laga naxa weeye arrintaasi ma aragtay beentii in la xalaashado macnaha xalaashada waxaan ula jeedaa inaan ihtimaam baan ma aragtay maxaanku dhahday aan laga soo qaadin ruuxu ka nixin been inuu sheego oo suuroobi karta in lagu shaqaysto oo suuroobi karta in lagu bannaysto wax badan oo suuroobi karta ma aragtay in la fududaysto arrintaasina waxay keenaysaa sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ruuxa arrimo kaloo waaweyn u jiido siduu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska macnihiisii wa iyaakum alkadib fa ina alkadiba yahdii ila alfujuur wa ina alfujuura yahdii ila annaar walaa yazaalu arajulu yakdibu wayataxara alkadib xataa yuktaba cinda allahi kadaaba ciyaadan billaah nebigu saasuu ina yidhi calayhi salaatu wasalaam macaasibay kuu dhiibi kugu hanoonin khayrkuna khayr buu kuu dhiibi haddaad khayrra tahay khayrunbaa ma aragtay lagaa rajaynayaa inaad ma aragtay sii samayso haddaad tahay nin sharre iyo ma aragtay xumaan ka shaqeeyana xumaantu xumaan bay kuu sii dhiibi marka walaalayaal guud ahaan waxa weeye maxaanku dhaha haweenkii oo ma aragtay dadka muslimiinta ihi khaasatan soomaalidaan ka hadlayaaye dadka kale waxa weeye daa kolley hadalkaygana dama fahmayaan soomaalida waan ka hadlayaa likulli maqaamin maqaal walikulli majaalin rijaal maqaamka hadda dadka aan iyo ulajeedada maqsadkaygu waa soomaalida halkaa jirta oo hadalkan cajabkeen ku hadlaya rudaanada fahmaya marka haweenkii waxaan maqlay inay sameeyeen arrin aan fiicnayn kolkay waddankaa tegeen oo cisyaan raggii ay ku sameeyeen
oy amar diiddo ku sameeyeen arrintaas waxa weeye haweenka ma aragtay muslimaadka ah ama xijaab ha qabta ama yiin qabin arrintaas waxa weeye diinta islaamka halis bay ku tahay waxayna ka hor imanaysaa sharaa'icdii ilaahay waxayna ka hor imanaysaa ilaahay subxaanahu watacaala qaybinta uu qaybiyey ma aragtay maxaanku idhaahdaayey maamulka guriga in raggii la siiyey alrijaalu qawaamuuna cala annisaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ma aragtay naagta ninkeega ma aragtay intuu u yeedho sariirta ugu yeedho diidda inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskii macnihiisii malaa'igtu kama suusho inay lacnado ilaa ma aragtay sida ay ku berido weeye lacnadaas marka waxa weeye arrintu waa weyn tahay haweenka waxaan ma aragtay ugu yeedhaynaa islaamka inay iltisaamaan waxaan ugu yeedhaynaa raggooda inay adeecaan waxaan ugu yeedhaynaa ma aragtay qurunka meeshaa ka socda iyo ibaaxiyada iyo shareecadii ilaahay baa lagu tumanaya waddankan aad joogtaan oo yurub iyo amerikaan ah marka waxa weeye amriika ah waxa weeye waddannada kale oo iyaguna ma aragtay uun dhinaca ku haya ama shuucigii hore ha ahaadaan ama meel kale oo kufriga ah oo diyaarul muslima ka fog waxaa lagu tumanayaa sharaa'icdii ilaahay baa lagu tumanayaa subxaanahu wa tacaala marka inaad ninidiina sharaa'icdaa waxa ay ku samaynayaanee ka hor imanayaan oo qudhankii iyo waxa xun ah inaad ninku raacin baan rajaynaynaa haweenkii haddaad tihiin oo raggiinna adeecdaan oo raggiinna ma aragtay maxaanku idhahdayey waxay naga dalbaan oo xuquuqu zawjiya inaad samaysaan wahaakadaa raggiina saas oo kalea laga rabaa weeye carruurta inaad gaalada ka celisaan oo tarbiyaysaan ood ku tarbiyaysaan tarbiya islaamiya sida ilaahayba subxaana wa tacala ina amrayuu leeya quu anfusakum waahlikum naara yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara waandir cashiirataka alaqrabiin uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxa weeye uu nebigu yidhi calayhi salaatu xadiiska macnihiisii kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi marka waxa weeye haweenkuna inay meeshoodii dadaalaan ka soo baxaan xuquuqda lagu lahaa ragguna ay dadaalaan oo xuquuqda haweenku ay ku leeyihiin ka soo baxaan ayaa loo baahan yahay oo dadkii inqaadisaan ummaddan soomaaliya waa burburtay waa duniga halkaa galay maanta oo baxsiga ku galay oo halkaa maaragtay quutulyoom ka raadiyey oo gaaladii fasaqada ahayd oo odayaashii ina dhalay waddankan ay u diideen inay degaan oo u diideen inay naag ingiriisii ku dhasho saynu ogayn maaragtay warqadda ay ku qorqorteen waa maanta gacanta aad ka gasheen oo waddankoodii ugu degteen oo naftiinnu raalli ka tahay inay dhex degan tihiin marka sidaa darteed waa inaad taariikhaha xasuusataan waa in maaragtay carruurta iyo haweenka iyo idinka nafihiinaba maaragtay ku ilaalisaan islaamka weeye waa inaad ku dadaashaan inaad carruurta soo celisaan waddanka burburkuu dooni ha lahaado dhibtuu dooni ha lahaado bacdu sharin ahwalu min bacdin islaamnimo adigoo intaad yurub ku dhimato carruurtaadu ay halkaa ku gaalowdo carruurtooda ay gaaloobaan kuwan haddayba waxoogaa haystaan tafiir gaali halkaa kaaga hadho oo markaa laguu qabsado ilaa waxa weeye man sanna sunnatan sayi'atan fa calayhi wisruhaa marka arrintaa inaad ka dadaashaan weeye carruurtii aad soo celisaan oo waddanka ay ku dhaqmaan oo islaamnimadii iyo wanaaggii maaragtay halkan aad u soo celisaan oo taa aad ku dadaashaan weeye oo walaalayaal waxa weeye gaalada iyo qudhanka ay wadaanna aad ka dadaashaan oo aad soo celisaan maaragtay dadka soomaalida qabyaalad baa ku jirta xataa waxaan maqlay yurubka gudihiisa in la isqabyaaladaynayo idinkoo waddankaa tegay weeye gaalada meeshaad degan tihiinna qowmiyay ku nool yihiin saad og tihiin waddaniyay ku nool yihiin xataa waxaan innagu hadda aan wadanno oo qabyaaladda ah ma ay wataan oo ma yaqaanaan laakiin iyagana meel kale kaga jirtaa ama ninka madow ha liidaan ama waddankooga ha ma aragtay ha takhtiisiyaan iyo waxa xukuma wahaakadaa haluma jarra marka inaad soo celisaan walaaltinimadii islaamnimada inama almu'minuuna ikhwa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdaa washabaka bayna asaabicih marka inaad walaaltinimadii soo celisaan oo soo celisaan dad walaalo oo wada dhashay baa tihiin oo qabyaaladda iska daysaan waddankan qabyaalad baa burburisay waanaad og tihiin fitanta jirta dadkii inay kala guureen oo qolo kasta gobolkoogii iyo meeshii buurtay degganaayeen dib ugu noqdeen baan hadda maanta haynaa waddanka kolkaan dhex marno oo soomaali saasay maaragtay u kala baxday qabyaalad baana kala rartay oo maaragtay isku hor keentay iyo wax qudhan oo casabi ah oon loo baahnayn waana dad walaalo ah waa dad isku diina waa dad waddan wada deggan waa dad isku afa waa dad isu ego oo maaragtay aabbihii hooye inay dhaleen maaragtay dadkoo dhan ay moodi kolka dibadda khaasatan loo baxoon la kala garanaynin markaa dadku waa dad saasoo sila leh walaaltinimadaas ha la fiiriyo oo dadka ha loo soo celiyo wax kale haddii la waayo ma aragtay qarannimadii soomaaliyeed waa in la helaa weeye markaa oo islaamnimo wadata qarannimo waxbay noo qaban mayse keliya waa inay islaamnimo iyo iimaan wadataa waa in ruuxa muslimkaa kala weynayaa waa inuu taqdiiriyaa waa walaalkaa weeye qabiil kale hadduu yahay waxa weeye qabiilku ma ah walaaltinimo male maanta waa haynaa qabaa'ishii kor kolka islaysay hoos baa maanta laiskugu daadegay jilib hoosaa la isu haystaa marka waynad og tihiin nebiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii
waxa weeye maxaan ku dhahdaa abulahab suurad dhan baa ku soo degtay waxa qaraabadiisu ahaa qaraabo lama fiirinin sababto haddii gaalnima timaad oo iimaanna ay halkan taallo oo iimaantii timaado gaalnimana halkan taallo waxa weeye oo la kala tago nasabku waxa ma qabto nasabku wuxuu wax qabtaa marka islaamnimo ay jirto iimaani jirto markaasaa qaraabada islaamku ma aragtay weyneeyaa markaasaa qaraabada u hormariyaa markaasaa qaraabada iyo riximka ay meesha imanayaan wey haddii taa la waayo oo iimaan la waayo qaraabada waxa ma qabato marka qabyaaladdu waa qurun nebiguna waa inooga digay calayhi salaatu wasalaam waa inaad ka fogaataan soomaali haddaad tihiin weeye dacuuha fa innahaa mumtina saasuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam bidacwa aljaahiliya wa anaa bayna adfurikum dacuuha fa innahaa mumtina buy nebiga calayhi salaatu wasalaam markii ay maaragtay labada asxaabtu waxoogaa maaragtay qaswada lagu jiray oo waxoogaa u yimid maxaanku idhahdaaye iska hor imad yaroo dhacay oo haddan wakhtigu saamaxaynin inaan halka ku sheego marka walaalayaal waa intaa aad ogaatana walaaltinimadii soo celisaan oo waddanka ninkii soo booqdaayey oo waddankan ku soo noqday waddankao dhan inuu soo maraa weeye oo soomaali oo dhan maaragtay hadduu waanin karo u waaniyaa oo gobollada u ku wareegaa oo waa ka culimmada waddanka jooga soo booqdaa sida mashaayikhdiina waaweyn oo hadda maanta waddanka jooga weeye shariif cabdinuur xafidahullaahu washeekh maxamed nuur qawi washeekh maxamed mucallim wagayruhum a'immadeenna maaragtay maanta waddanka jooga soo booqdaa oo la tashadaa oo maaragtay waddanka aad u soo ducaysaan oo lafihiinna aad ilaalisaan iyo carruurtiinna waa lagama maarmaan ummaddan soomaaliyeed marka burbur baa ku dhacay waxay u baahan tahay walaalayaal inqaad bay u baahan tahay badbaadin bay u baahan tahay xabadna ilaa hadda wakhtigaa aan joogno xabad baa waddanka ka socota weeye meelaha qaarkoodna waxaa suurooda inuu waxoogaa deganaansha jiro gaalana waddanka waxaa rabtaa inay qabsato oy ku soo duulaan oy liqaan bay rabaan gaalo markana qabsata xaaladan hadda maanta aan ku nool lahay oon khayr lahayn oo dawladnimo jirin oo maaragtay tacliimi jirin oo dhaqaale jirin oo waddanka gaaji ka jirto xaalada tanaa fadilaya anu kolley kolkaan eega weeye maxay marinba ilaahay naga saari laakiin gaala in nagu soo duushayna qabsato oo inagu dhex dhaldhasho oo annaga maaragtay haweenka iyo carruurtayada kharribto ciyaadan billahi ilaahan ka magan gallay weeye nacuudu billahi min alfitan fitnadan maanta joogta iyaguna ka mid yihiin waana fitnada ugu weyn weeye marka halkan hadda maanta aan hadalkan waanada aan ka soo jeedinayo waa maaragtay macadkii maaragtay alimaam shaafici oo ku yaalay maaragtay madrasada ku taallay weeye muqdisho oo maaragtay halkan digfeerna ku dhoweyd macadkaasi waxa weeye macaahidda markaan hadda aan dhex maray waddanka ugu sarreeya buu ku jiraa macadkaas waxa weeye dad badanna waa dhigtaa waxaana wax ka dhiga culummo waaweyn iyo asaatida waxa wax ka dhiga indheergaratadii waddankan oo islaamkiina maaragtay fahmay baa wax ka dhiga culuumtiisuna waa shaamil waxa weeye maaragtay culuum shaamila weeye manhajkii islaamkiina waa maaragtay ku dabaqan yahay dhinac kastana maaragtay waa shaamil haddii af kale oo la raba in lagu barto meesha iyo culuum kale dhammaan intaa waxaa u raaca maaragtay in xataa farsamada gacanta iyo waxyaalo badan ay dadaalayaan maaragtay maxadkan dadka ku jira iyo maaragtay macallimiinta iyo dhammaan iyo idaarada inay ku dadaalayaan waa meelaha maanta loo baahan yahay in lasoo booqdo oo ruuxa muslimkaee dibadda ka yimaado inuu indhihiisa ku arko intaajka iyo wanaagga meesha ka jiro oon ilaahay baryayna subxaanahu wa tacaala inuu ikhlaas ka dhigo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyaga iyo maaragtay weliba xasanaadkooga qiyaamaha ilaahay subxaana wa tacaala inuu uga dhigo qabriga ilaahay ku badbaadiyo waxa weeye waa meel maaragtay haddaad aragto maxadkaasi aad u wanaagsan waa meelaha maanta aan rajaynayno waddanka soomaaliya ummaddan ilaahay inuu ku inqaadiyo waa meelaha aan rabno walaalayaar gobolkaa dooni aad ahaataan meeshaa dooni maaragtay ruuxa ku dhasho waxa weeye loo baahan yahay inaad timaadaan ood soo booqataan ood indhihiina ku aragtaan waxa ka socda waa meelaha loo baahan yahay maanta in la ayido oo maaragtay la barbar joogsado oo la tamwiiliyo oo maxaanku idhaahdaaye maalkeenna aan ku bixinno oon cilmigeenna ku bixinno oo ninkii wax kale awoodi waaya inuu yimaaduu ka jeediyo muxaadaraad oo wax kale awoodi waayo inuu kutubu soo diro oo wax kale awoodi waayo cajilooyinka inuu soo diro kii kale inuu dhismihiisa iyo dhinaca maaragtay maxadka ilaalintiisa iqtisaadiyan dhinac kasta inuu maaragtay wax ka qabto waa maxad maaragtay heer sara wallaahi ana aan ku farxay markaan dhex maray oo la iiga warramay xaaladiisa wax badan oo isaga ka midana indhahayga aan ku arkay aad iyo aadan ugu farxay weeye waa meelahaan u baahanay maanta inaan xoojinno weeye dadka soomaaliduna waa dad juhaala waa dad aan waxba garanaynin waxaan u baahannahay dad diintii bara waxaan u baahannahay dad maaragtay ku soo celiya deganaansho waxaan u baahannahay dad horseeda oo khayr horseeda meelaha marka khayrka loogu horseedayay ka mid tahay marka walaalayaal
intaas waxay maaragtay iga ahayd nasiixo naftayda iyo idinka baan inii soo jeedinayo wasala allahu calaa muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam markanna muuqaalka idiin muuqda waa dhismaha cusub ee dugsiga aasaasiga ah ee al-imaamu shaafici oo ku yaala magaalada muqdisho لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهديه إلى يوم الدين أما بعد لأجل راحتهم ويدخران وسعا في سبيل ترقيتهم وإسعادهم قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقد أوصى مولانا وخالقنا الإنسان بوالديه إحسانا حتى يكون في حياته من الموفقين في آخرته من الناجحين ويحشر يوم الحساب ما لا يصير معنى الشرعي يصير بمعنى الشرعي الابتداء بالطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك الله فيك. طريقة أو الصيغة الطريقة أو الصيغة ومعنى شرعي واصطلاحي الطريقة ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم يحزنون. نقدم إليكم كلمة حول الأخوة الإسلامية يقدمها لنا التلميذ عبد الفتاح أحمد فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يحيط بين قلوب المؤمنين بالمحبة الخالصة والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد حتى الوجود ودعا إلى الأخوة والتراحم والمحبة الكاملة الكافية. أحمد الله تعالى وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله مقلب القلوب ومحولها بيده الأمر وإليه المصير. وأشهد أن محمدا رسول الله بعثه ربه بالهدى ليجمع القلوب على الحق بإذن ربه وليبين شرع النبوة على أساس من الإيمان الصادق والرغبة الخيرة في إعلان كلمة الله والتعاون على ما يحقق الخير للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من سنتي وكتب حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يحوم في الكل كما يكره أن يحوم في النار. يا أيها السلام عليكم
إن شاء الله بطلب كواد في برنامج كان يخص على وقتي يبقى أول هو بدل الوقت مكان يبقى لسوق وقتي لو وصل إلى رأس عن بلاغة خلاص ساعة مكان قطع من الحاجات اللي أصلا برضه مهم ولا غير إن شاء الله إذا قد أخذها وقت يقول رقم ولا توقع هم نماذج وخصوصا بين السنة يبقى تجيب له وقت اليوم حاجة خلنا حاجة لمن حاجة لو بهاي لا دب له ما